بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد والله waxay ku soo dhawaataan casharkeennii nutrition-ka iyo diet-ka ee aan uga hadli jirnay cuntada iyo nafaqada sida iskugu xiran yihiin oo aan mar walba ku soo bandhigi jiray cuntada iyo caafimaadka yani waxa weeye xiriirka ka dhaxeeya waayahay maanta waxaan jeclahay in aan ka hadlo cashar xaqiiqi ah isleeyahay qof walba oo dhageysta videogan wax badan ayuu ka faa'iidi doonaa casharkan ciwaankiisa waxaa la yiraahdaa shan sharci oo lagu talagalay inaad raacdid marka aad cunaysid fruitka ama miraha markaad cunaysid shan sharci oo lagu talagalay in aad raacdid oo wax badan aad kaga fahmi kartid caafimaadkaaga ayaan jeclahay maanta in aan idinku soo gudbiyo videogan hadduu Allah awoodi lahayd waxaa mar walba habboon oo fiican in fruitka aad cuntid waqtiga subaxii ah ama waqtiga duhurkii maalintii inta lagu jiro in aad cuntid ayaa fiican sababtuna waxa weeye dhaqaatiirta nutrition-ka iyo diet-ka wax badan ka qoray oo daraaseeyay oo ku takhasusay waxay yiraahdaan fruitka in badan oo kamid ah waxa uu leeyahay sonkortaas marka jirkaaga ay gasho iyadoo ay fiicneenba sugar levelka jirkaaga inuusan mar walba aadin kor ayay u kicisaa marka kor u kicisana waxa weeye wuxuu u baahan yahay jirkaaga waqti sonkortaas ay hoos ugu soo degto soo waqtiga subaxii waa waqti jirkaaga uu u baahan yahay in uu shaqeeyo oo uu soconayo energy uu hayo waqtiga duhurka waxa lagu jiraa maalintii sonkortii marka jirkaaga gashay waxa gubaya shaqadaadii waxa gubaya markaas qoraxdii waxa gubaya hawshii aad ku jirtay laakiin fruitka haddii aad cuntid habeenkii haddii aad cuntid waxa laga yaabaa sonkortaas in macnaha waxa waa jirkaaga ay ku harto number 1 number 2 waxa laga yaabaa sugar levelkaaga oo kor aaday markii hore markaad fruit sonkorta ay ku badan tahay ama sonkor badan ay ku jirto aad cuntay in yani waxa waa hoos sida ugu soo degto sonkorta jirkaaga ku jira ay adkaan doonto marka waxa weeye waqtiga habeenkii in aan la cunin ayaa habboon fruitka soo waxa laga yaabaa inaad seexatid waxa laga yaabaa inaad fadhiisatid waxa laga yaabaa yani in jirkaaga uusan active ahayn dhaqdhaqaaq uusan lahayn marka sharciga koowaad waxa waaye fruitka ama miraha waxa cunaysaa waqtiga subaxii ah ama waqtiga duhurkii ah ee maalintii lagu jiro labo waxaad cuntaa noocyo kala duwan oo fruitka ah sababta ugu weyn oo sababtan ay u jirtana waxa weeye fruitka waxa laga helaa waxyaalo fara badan oo jirkaaga faa'iido u ah waxa laga helaa waxa uu leeyahay macdan kala duwan waxa uu leeyahay vitamino kala duwan vitamin A vitamin B vitamin C yani vitamino badan oo jirkaaga u baahan yahay ayuu leeyahay waxa uu leeyahay waxa weeye nafaqooyin fara badan oo jirkaaga uu u baahan yahay waxa uu leeyahay waxa weeye antioxidants waxyaalo fara badan oo jirka cadowga ka celiya ayuu leeyahay waxa uu leeyahay waxyaalo fara badan oo markaas aan la soo koobi karin ayaa fruitka laga helaa marka hal nooc oo fruitka kamid ah hadaa cuntid waxaad luminaysaa oo aadan helaynin noocyadii kala duwanaa ee aad ka helaysay fruitka fiberkii aad ka helaysay fruitka aad luminaysaa dadkan badanaa waxay cunaan mooska u badan yihiin inay cunaan cunto walba ay cunaan marka mooska yani waa u fiican yahay inaad cuntid laakiinse waxaa fiican in aad kala bedeshid fruitka si faa'iidooyinkaas faraha badan aad u heshid oo aad u heshid macdantii vitaminka u heshid antioxidantiga u heshid fiberka u heshid waxaas oo dhan u heshid noocyada kala duwan ee fruitka cunaysid kala qaybi oo kala nooc ka kala dhig waayo qodobka saddexaad waxa waaye fruitka ha cunin fruitka don't eat baa meeshan ku qoran ha cunin fruitka waqtiga cuntada caadiga aad cunaysid ka hor ama kadib dhaqaatiir badan baa waxay aaminsan yihiin oo nutrition-ka iyo diet-ka ku takhasusay haddii aad fruit cuntid kadibna cunto caadiga aad cuntid in ay isku dhex qasmayaan oo dheefshiidkaagii uu adkaanayo in uu isku shiido sababtoo fruitka fiber ayaa laga helaa cuntadii caadiga ahaydna waxa laga yaabaa in yani waxa waaye calooshaada ay ku qurunto oo kadibna laga yaabaa caloosha inay ku adkaato waxa laga yaabaa caloosha inay ku istaagto waxa laga yaabaa saxarada inay ku adkaato waxa laga yaabaa gas
in yani waxa waaye aad mataqaanaa ay kuu keento so waxay ku leeyihiin haddii fruudka iyo cuntadii caadiga aad saddex gelisid waxaa laga yaabaa calooshaada in ay ku qurunto marka fruudka waqti si aad ku cuntid waxaad siisaa 3 saac ama 2 saac cuntadii kale aad cunaysay inaad u dhexaysiisid isla markiiba cuntadii caadiga ahayd ha ku cunin marka waxaa ugu fiican waxaa weeye cuntada fruudka ah in aad waqti ka duwan waqtiga cuntada caadiga aad cunaysid aad cuntid waqtiga quraacdii qado u dhexayso ama snack waxa ay yiraahdaan cuntada fudud ee u dhexayso cuntooyinka waaweyn oo kale aad ka dhigatid soo tufaaxaagii mooskaagii cambahaagii yani waxa waaye liintaadii waxaad ka dhigataa snacks saas ugu fiican laakiin ha ka daba geenin markiiba cuntadii weyneed ee aad cunaysay uma fiicna waaye sharciga afraad waxa waaye mar walba waxaad cuntaa fruit fresh ah tan waxaa laga hortegayaa fruits fara badan oo waxaa arkaysaa dhalooyin lagu rido ama gasacado lagu rido oo banaanka lagu iibiyo waa laga fiican yahay mar walba waxaa fiican fruitka freshka ah ee suuqa kasoo iibsan kartid weliba kuwa organiga ah oo yani waxa waaye dukaamada lagu iibiyo xoogaha laga yaabaa qaali in ay yihiin marka loo fiiriyo fruitka kale laakiin way u qalmaan sababta wax walba caafimaadkaaga u fiican lacagtaada waa inaad u hurtid marka mar walba aad fruit cunaysid fruitka freshka ah ee hadda laga soo gooyey ii sheeg mataqaana beerta inaad cuntid ayaa fiican sharciga shanaad waxa waaye fruitka waxaa u cuntaa in moderation يعني waxaa dad badan baa laga yaabaa in ay maqlaan oo fruitka waa cuni kartaa nafsadaada ayuu fiican yahay caafimaadka ayuu fiican yahay maanta oo dhan inaad iska darjisid looma baahna wax walba marka xadkiisa la dhaafiyo xanuun ayuu isku bedelaa marka wax yar tusaale ahaan haddii aad rabtid tufaax inaad cuntid xabad ama 2 xabo tufaaxa cun u sug dheefshiidkaaga intuu shiidayo sug saacad 2 saac 3 saac ka soo wareegto haddana mid kale tijaabi laakiin yani waxa waa hal mar in aad jug ka siisid waa ka soo hadalnay waxyaalaha fiican ee cuntada siyaabaha fiican ee cuntada loo cuno ma ahan marka fruitka markaa cunaysid in moderation ama dhexdhexaad in aad u cuntid ayaa fiican cajiladda waxaa kaga hadalnay 5 sharci oo kuu fududeynayo ama lagaa rabo in aad cuntid marka aad cunaysid fruitka ama miraha 1 2 3 4 5 waxaan jeclahay casharkan inaad wax badan ka faa'iideen waxaad la wadaagtaan saaxiibadiin dadka aad taqaanaan dadka aad waxa weeye la hadashaan la wadaaga insha Allah inta aan cajiladan ama casharka ku xiga iska arki doono waxaan ka tagayaa sidaas iyo salaamta wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh